صدوا مدحوينهنا صدوا مدحوينهنا صدوا مدحوينهنا صدوا شعبك سلام يا فكرك يا إلهي شعبك سلام يا فكرك يا إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan si weyn ugu mahad celinayaa bulshooyinka maanta iskugu soo baxday soo dhaweynteeda sida sharafta leh dhalinyarada gobolka Mudug. waxaan ahay musharax u taagan xilka dawladda Puntland madaxweyne. insha Allah hadda halkaan kuma soo koobi karo oraahyadayda. insha Allah xalfadaha waxaan qaban doonaa xalfado ka waaweyn. waxaan filayaa maanta inaad ii taagnaydeen maanta dhan qoraxda ii taagnaydeen. hadal idinku badaalin karo waa idinka soo daahay 9 saac bay maraysaa. waxaan marayaa qaarkiin inay saaka 2 saac meesha yimaadeen. aad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta leh ee qabateen. waxaan idin sheegayaa fiidiyoga dadka qaarkood waxay u malaynayaan wax been inay yahay oo waxay isleeyihiin nin dhalinyaro oo intaan leeg oo is soo sharaxay wax dhici kara maahan. laakiin waxaan idin sheegayaa maanta inay Puntland ka dhici doonto wiil intaan leeg oo ku socda codka bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan u hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan Puntland. haddii aan xulkaan aan ku guuleysto waxaa idin qaban doonaa oo hadda waxa weeye aan idin sheegayo dhulkan sidaan wada ognahay waa dhul wada khayraad badan macdanta taallo. dudumahan aad arkaysaan baadiyaheena ku yaala kulli hoostooda waxa ah ceelal biyo oo macaan baa ah. dudumahaas aan ka qaadaya ceelal baa idin sameynaya macaan oo biyo xareer ah. waddankan wuxuu u baahan yahay beero u baahan yahay. waxaan uga mahad celinayaa xukuumadda hadda jira xukuumadda ka horeysa xukuumad kasta oo Puntland soo madha wax qabad bay Puntland u qabataa mid kasta heer bay gaarsiisaa darashay gaarsiisaa tan hadda ugu dambaysa oo Puntland heer bay gaarsiisay. laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa anigu haddaan xilkan ku guuleysto Puntland inaan gaarsiin doono meel aysan weligeed gaarin. dhaweynayna maanta haddaan nahay dhalinyarta reer Gaalkacyo dhalinyarta reer Puntland madaxweynahayaga musharaxna noo ah Cabdullaahi Bashiir Faarax waxaan leenahay noqonkii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca. waxaan leenahay soo dhawow maanta dhan qorax baanu ku taagnayn waanu ku sugaynay waanu ku sadaalinaynay. waxaanu halkan ku faraxsanahay inuu wiil da'yar maanta noo qaban doono ama aanu rajaynayno inuu noo qabto xilka 2019 ee madaxtinimada Puntland. waxaan anigoo ku hadlay afka dhalinyarta Soomaaliyeed anigoo ku hadlay afka dhalinyarta reer Puntland waxaan u soo dhaweynayaa si 100% madaxweyne mudane musharax Cabdullaahi Bashiir Faarax. waxaan leenahay soo dhawow mudane madaxweyne waxaan ku rajaynaynaa guul. aad baan u taageersanahay in sanadka ay qabtaan dhalinyar yar oo da'yar horay waa u soo qaban jireen dad waaweyn xilka madaxtinimo waana la arki jiray macnaha waxyaabo badan way soo qabteen. laakiin ma sha Allah maanta waxaan jeclahay heerkii ay Puntland taagneed ama ay Soomaaliya taagneed inaan wax badan ka bedelno haddaan nahay dhalinyarta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland haddaan nahay hooyada Soomaaliya ee Puntland. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynayaa mudane Cabdullaahi Bashiir Faarax oo u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland 2019. maanta aad ugu faraxsan inaan soo dhaweyno musharax madaxweyne Cabdullaahi Bashiir Cawl madaxweyne Puntland 2019. Cabdullaahi waa nin dhalinyaro oo maxaan ku raadayay isha waddanka ku dhashay ka soo shaqeeyay wax ku bartay aqoon-yahana aad ugu faraxsanahay in Cabdullaahi ku soo dhawaado inaan ku soo dhawaano magaalada Gaalkacyo. aad ugu rajaynaa inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee uu raadinayo. waa nin dhalinyaro si gaar ah noo saameynaysa anaga qof dhalinyaro inuu maxaan ku raadayay xilka isku soo taago. marka Cabdullaahi mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweey magaalada Gaalkacyo. إن شاء الله حلكن الله كفوديو مكان سنة بدن سنعيون سوماليين مكان سنة بدن سنعيون سوماليين أبيك يكسو